ugu filan dambi qof muslim oo liidid oo xaqirtid muslimka kale oo dhan waa ka xaaraan dhiigiisu waa ka xaaraan sharaftiisa iyo magaciisa iyo maamuuskiisu waa ka xaaraan xoolihiisa iyo hantidiisu waa ka xaaraan walaalo muslimaatiina wada jooga saasuu maxamed sallallahu alayhi wasallam hada qawlu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wada jooga buu nabiga sallallahu alayhi wasallam quraankiina halka aan kaga tago sunnadii nabigana afarta xadiis igaga filan inaan ku dhaqmo horta anigu ka hadlahayaa idinkana dardaaran hayga noqdo inta maqlaysa idinku inaad ku dhaqantaan oo shicaarkeen uu ahaado almuslimu akhul muslim almuslimu akhul muslimi muslimka kale waa walaalkii inta wixii ka hooseeya cidii waxa idinku akhrida xadiiska nabiga ka xoog badan ku dheh almuslimu akhul muslimi xogaarba hoos la isku dhiidhiibaaye haddii in hoos lagu dhiidhiibo almuslimu akhul muslim dheh yaa wax kale lagu dhiib almuslimu akhul muslim inta kale waa iska alright ya inta kale sunuud la qaybsanaya waa iska ogolahay laakiin almuslimu akhul muslim ku dulmin maayo ku hiifaari maayo horumarkaaga ka nixi maayo wanaagaaga waan ku farxi anna ilaahay baan intaasoo kala weydiisan garabkaagaan ahay agtaada laygu ka xaman maayo dhibkuuma ogoli sidoo nabi maxamed igu yiri sallallahu alayhi wasallam qodobka saddexaad ee waxa weeyaan ku khatimeynaa darsigu hadii quraanku halka dhigay in la wada jooga inay fariida tahay nabi maxamedna halka haduu dhigay sallallahu alayhi wasallam cilaaqaadka ka dhaxeeya dadka muuminiinta ah halka uu dhigay waxaan rabaa inaan ka hadlo markaa waa maxay mabaadida ugu waaweyn qodobyada ugu waaweyn ay tahay inaan ilaalino ahsanallahu ilayk qodobyada ugu waaweyn ay tahay inaynu ilaalino wada joogaas qodobyada ilaalinaya waa maxay tiirarka ilaalinaya waa maxay tiirar waa leeyahay koow qodobka kale waxa weeye waxyaabaha duminaya waa maxay marka waxaan rabaa in ogaano wada jooga quruxda badan soo ma qurux badna wada joogaasi soo ma qurux badna وهذا بوذا جوجا نبتجلية له محاط كينيا تيرك عيتها إنه ها كل جنانه مركا تير كاسي قفك عن أرك يسقى الدمينية ولا دعية فاس كلا دعية وحن أجاه قفك كاس إنه يجسوا الدمينية سقف كينه يجسوا مكان وكان قبنا يا صومها ولا هيجود من دمشق ووذا جوجا نكنيه هيجود تابا برات الليل هذا جعان كجا قبنا أفك هذا كجا وانك أسوق هذا كان هذا هوستا كير عبني حديث كده صدق حديث ده هذا واحد كلا قبل كريوان وايه كو لبا صدق أفرشان لح تضبع قضب إن شاء الله ودق إن شاء الله كو وذا جوجا بلشيني وذا جوجتو وحتير كو وح العدل والمساواة عدالة يسنان أصل كو وذا تدكو يكو وذا جوجا واحد أحسن قولين كان قالوا برتي علميا سيدا مشاكل كالله حل الخلافات conflict resolution تذكر كنت تخصصي أيام مركي بارين وحلاله وحي conflict أدون كدعي وحلاله وحي دجال يصراع يهردن أدون كدعي مركي بارين وحيرادين لبق قضب ونكبذ ويني محاكينا bulshada inay wada dagi weydo nabad galiye heli weydo laba qodob waanu ka badi weynay iyagu yiraahdeen hada kaafir ya baxfigiisi weey waxay ku soo aruuriyeen koow at-tama' waxaanad lahayno aad doonaysid inaad heshid sad bursi malihid adigu laakiin waxaad rabtaa inaad boobtid ama qalin ku boob ama xoog ku boob saad ku boobsaday ku taala at-tama' waxaanad lahayn oo qeyrka leeyahay oo qaadatid colaad buu keenaa laba waxa iyagu yiraahdeen waa nacaybka alkaraahiya hatred niyo hebel dar ilaahay niyo hebel waa iska nacab hebel anoo reerka waa nacabahay hadda wax kale ma jiro waa nacabahay reerka anoo reerka waa nacabahay anoo kooxda waa nacabahay anoo ninka leeyma tusnay waa leeyma tuso naftayda diiday war naftaadu ma ilaahba naftaadu ma yada xukunka bixiyo soo ka nabi maxamed kula almuslimu akhul muslimi soo ka nabi hawshi dhameeyay ma sallallahu alayhi wasallam hawl nabi maxamed dhameeyo ilaahay dhameeyay adigu waxaad leedahay aniga qofka ma arkasanayo ruuxaygu baan nacabo markuu iga soo horbaxanayo anu halka baan maraayo ya reerka yare halkaas soo tuban anigu fara badan reerku way ku soo eegayaan uniyo had ekata waa maxay waa
الطمع كو إيوه الكراهية hatred لبدا قضبة وحكينا نبي قال الآن العدل والمساواة المساواة ضدك ما كان لنسوا هذا القاضي معها قصب ضدك إنه وضم القبائل نقضان ما يمتاس إلهي بتاعك الله فضله كما حد لنا متاس وحن كهذا لنا شرعية ضدكم ما أسميهين تصالي بارشيغا جاكو الله يحيى كلامك قبيلي أنا قبيلي بكيمي ده جاكو يرو قبيلي أنا كله يحيى haddii anigoo saboolo waxba haysan oo agoon oo islaantii hooyaday kaligeed ay wado aan ku isku qabsano ninka noogu taajirsan anaga magaaladaas deedna la ana waan la istiraada ma ana leh marka aan maxkamadda u sii socdo anigoo saboolo miskiin oo waxba haysanin lugaha ma isku dhufanayo ma baqaya oo mislay talowniyo xaqaaga heli maysidniyo waa laga lacag badayo waa laga muuq dheeriyo waa laga maamuus badayo ama cagta lagu mariyaa dareenkaas hadii uu igalo musaawa ma jiro hada musaawaga laga hadlaya waa kaas aniga oo ku dhaclaho maxabrasho aan lahayno dhiirano saboolon waxba aan haysano xaqayga intaan doonto mooro kara war waa tuugo uu dhacay qabo kaan dhexdhexaadinayana haddaan xaq leeyahay xaqayga ma imarinaya isagoon waqtina igu dheerayn waxna la iga qaadin caaqilna ana soo kaxayn sultaanna ana soo kaxaynin cidna ana soo kaxaysano keligay mud aniga oo ah intaan halka inaad tago war dhulkana aabahayba iga tago aabahayna wuu go'ayo saasaan islaanteen baan korisay ninkana waa maal qabeen oo hanti buu leeyahay waxa iibu ku soo durkeen naga qabo halka ma ku heli kara xaqaygi oo kaamil ah haddii la helo mujtamacaas waa mujtamac nabadgelyo ku wada jooga مسكين لكن هدو كن جاب بقى كدون سيء هالكا هدو كدون سيء أو آمن سيء هاي وحيسين أنو هلين إلا أولح لح ذا الله حق يمرق يمال يمقع يمنصب الله شيئا كرو نبتقل يمجرتو حقيقة ذا نفتح قضب كاسين آدم حتى لي وإلى علمه كذلك وحسوه وزقل قضب كاس الحرمان والتهميش الحرمان والتهميش هو محي هدي لك كلا دقاقو وبلشده ay kala dhaqaaqdo in yarina ay maal qabeen noqoto ubadkooda ay waxbarasho dibadda u dirtaan hadii ay bukuure kuwa kama soo horjeedo waa iska oran ilaahay baa bixiyay bulshada badankeeduna ay boga dhulka ku hayso oo biritoole marka la yimaado ee shaqadii la isugu yimaado ee tartankii la isugu yimaado inanka jaamacadaha ka soo baxay masiinka yare meelahan boardka baxaytoole dirqi baxaytoole ku socday tartami kari maayaan markaas waxa noqonaysa sida loo socdo hantidii iyo aqoontii iyo maamulkiiba in yar buu gacantooda ku aruuraya waa intii haysatay ayuu ku aruuraya dadka badankooduna maxay arkayaan inaanay halka waxba ku lahayn iyagu marti inay ka yihiin nabadgelyo ma jirto markaas حتى لا يكون دولة بين الأغنياء إلهي سبحانه وتعالى وحن وإن فافية مركا الصدقة والنفقة والزكاة والضمان الاجتماعي وحن إسلام كحد لا يؤذي الوام محي وإن بتقلينا الله له وإن أنا محي طبقات أنا إيدنا إن قدح سما اسمن وحيابها كذلك عدالة يسنان تسوهوز قلي وحكم ذا الفرص وحي opportunity فرص وحي equal الله هلده فرص كاين equal الله هلو اما مid siyaasadeed ha noqoto ama mid waxbarasho ha noqoto ama mid dhaqaale ha noqoto furaska iyadna waa in loo helaa qofka iyo dhididkiisa qofka iyo aqoontiisa qofka iyo kartidiisa qofka iyo soo saarkiisa kadib tawfiiqda ilaahay subhanahu wa ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi العدل والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذات كان ابن خلدون أنا كعل علي ابن خلدون وحو كسو أروريي بربر كالدولة وحو دراسيي عرب عجم بربر روم بيرشيان شنطة البحنمو أيو دراسيي يعني ابن خلدون shantaa wuxuu arkay dawladuhu maxay ku dhismi jireen maxaanay ku dumi jireen bulshaweyntu maxay ku wada joogtay maxay ku kala tagtay daraasad cilmiyu galay shantaa ummadood wuxuu ku soo aruuriyay
أفكنا كعدي عدالة يسنان هدي لهلو دولتنا حوق بي لهاتا مجتمعنا مجتمع وذا جوغ أيو نوضع ظلم يبغي وهدو فربطنا دولة أفكي لك درتا مجتمعنا وكلا دقاقا خلاصة كتاب كيسا وينو إذلي محوك سو أروريي هل كاسو محوتو لي أيو صوري كاسوا قضب ككالي إن نبتقلية ذا dadka wada muslimiinta wada jooga nabadgelyadu inay nabadgelyo ku wada joogaan adkeena waa maxay shariicada ilaahay iyo diinta ilaahay inay tabaqaan oo fuliyaan oo maamulka siyaasadda u haya maamulka dhaqanka u haya culimada diinta u haysa aqoon-yahanada ku dhex jira mujtamaca intiisa badan oo idili waa inay isku raacaan si ay nabadgelyadoodu ay u xaqiiqowdo inay yiraahdaan wixii inaga dhaxeeyay waa kitaabka ilaahay sunnada nabi maxamed haynu fulino hadii la fulin waayo oo lagu dhaqmi waayo kitaabka ilaahay siduu yiri sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo shariicadii islaamka hadii la fulin waayo iyadoo nin cadna aan laga baqaynin gaal baa ku i'tiraafi waayina aan laga baqayn oo laga habranaynin diinta ilaahay iyo dastuurka ummaddu ay ku qoratay kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala loo bareero oo sultaan kasta iyo caaqil walba intuu reerkiisa hor istaaga uu yiraahdo kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay dhaqankeeda inoo manhaj ah wada jooggeeda nabad baa ku imanaysa arrinkaas oo la dayaco oo la agmaro lagu jeeceesana nabadgelyo la'aan ayuu isaguna maxay u keenaya qodobka uu qodob ka dambeeya waxa weeye iyadna ummadda inay wada joogto isku adkaynaya waa an-nasiiha waxa la isku sheego xadiiskii nabiga saxiix ahaa diinu an-nasiiha waa ayaanu u naseexaynaa bay yiraahdeen kitaabka ilaahay u naseexay oo waa maxay da wuxuu ku leeyahay ku dhaqan wuxuu leeyahay na sheeg ha kala qarqarin hana kala maquurin inta aayada waxa jira barba la socdo zamanka iska jecel yahay inta uu sheegin war waxa quraanka ku qoran wada sheeg horta waa naseexada kitaabka ilaahay horta kaasi waa koow laba nabi maxamedna sidoo kale sallallahu alayhi wasallam madaxda muslimiinta iyadna u naseexayo wa aamatihim aamatu muslimiintana wa amr qodobka kale waa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar واتيل لها كليات كواوين إسلام كواشن وحاب إسلام كودوروا شن واتيل ورنجري الدين والنفس والعرض والمال شن واتيل ترنجري ولما ذا قارو حيدادين ما لها هل قضب إلا قدر وفعنا لها يلح لقدقوا ولا قدقوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقاصد الكلية للإسلام أنت جارو قرآنك كسر نغضي iyo inta jeer ahadiista nabiga ay ku soo noqotay waa dareemi kartaa maqsad inuu yahay waxna wanaagana la is amro xumahana la iska reebo aayadkii quraankeedana maxay tolay waad xafidsantihiin qodobka ugu dambeeya ee nabadgelyada mujtamacu ay wada joogooda adkaynay waxa kamida dhalinyarada oo idinka imka dhalinyarada waa arkaya dhalinyarada maxaa uga jeedaa dhalinyarada caqligooda iyo qalbigooda haddii la dhowri waayo caqligooda haddii laga dhowri waayo laga ilaalin waayo afkaar iyo fikir soo galeed ah oo dibadaha inooga yimid oo la soo waariday qalbigoodana haddii laga dhowri waayo macaasida iyo shahawaadka laga dhowri waayo oo dhalinyarada oo lafdhabartii ku ah Soomaaliland oo dhan imika markana waxa lagu wada 5% waa dhalinyaro wax yar ba 5% يعني 10kii qof ee ka soo horbaxa 6 ama 7 ayaa dhalinyaro ah 3 baa dhaafay dhalinyaro marka nabadgelyadaan ka hadlaynay wada joogan ka hadlayna waa dhalinyarada ayaa u badan cid laga hadlay marka waa iyaga 70% iyo 30% 70% buu khitaabku ku dhacaya iyaga badan leeyahay haye si markaa nabadgelyo loo helo oo mujtamac aamina oo u noqdo dhalinyarada waa in waqti badan la geliya oo siyaasad qaran ay ka jirtaa oo qaranka uu ka dhiga awlawiyaadkiisa ugu waaweyn dhalinyarada sidee loogu mashquuli lahaa in laga shaqeeyo koow
dhalinyarada caqiidadooda in la dhiso oo iskuulka markuu ilmahan uu galo ilma 12 sano iskuulku soo dhiganayay 4 sanana jaamacad ku soo dhiganayay 16 sano wax ku soo dhiganayo ku soo baxay marka uu jaamacadda uu ka soo baxo YouTube yaru meel uu ka dhageysto iyo buug afqalaad ku qoran oo meel uu ku akhriyo jiritaankii Ilaahay inuu ka shakiyo diintii iyo shariicadii calaamad su'aal inuu iska weydiiyo hableena xijaabkii iyo dhaqankiina calaamad su'aal waa 16 sano ku ag jooga maxaad u dhigaysay hadaba ilaa waa kii ku fasalka ku fadhiyo ku aroor kasta islaantu inta la hooxda soo siisa ku soo direysay 16 sano ilmahan uu ku jooga ilmaha yar aqligiisu nadiifta uu ahaa maxaad ku qoratay gaashaanka aad siisay waa maxay afkaartan socota adduunka socota ma ka gaashaamiso macallin u diyaara inuu buriyo oo kartida iyo aqoonta leh inuu ku buriyo ilmaha laabtiisa yaqiin iyo kalsoonida Ilaahay ku abuuro oo biritoole marka ay dabeesho ay luxdo uu yiraahdo ashhadu an la ilaaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah macallinkaygi baa ii soo dhigay shahawaadkan iyo waxaan maanta aad dhex wadaan marka ilmahan aqeedadiisa isaga oo yar in la dhiso oo uu noqdo maxay hawl qaran oo wasaaradda waxbarashada iyo mujtamaceena iyo meediyadeena iyo warfaafinteenu ay u baxdo shubuhaadka maanta dhalinyarada haysta ee aqadiga inta la wada qoro jawaabteedii iyo manhajka la geliyo ilmaha markuu yar yahay lagu ababiyo waa qodob waa nabadgelyada ka hadlaya ونبتجليدي عن يدي وفريضة شرعية وضرورة بشرية المها معلوم والبك الدواخاء أما كمال محيط ولا شكية أما كبقوضة إنك يراضو لا ضوط هبل لا ضوط معلوم ما مد بعد الدودي ضوط واسك alright لكن ما حصحه وحصح مركه هراء المها إلا قاشامه الله توبره إنه شبهات كان إنه سكع لك قضب كاسوا قضب وحنو بهية هي ضوط إربو بهية dhalinyaradii de cuna oo cabba oo iskuulka taga habeenkiina seexda de ma dhalinyaro inta sameynaysa sameynaya baba dhalinyaruba u yahay bee cuni cab iskuulkii tag waa all right laakiin markaaba seexa ka yeeli maayde muxuu rabaa entertainment wuxuu rabaa in la madadaaliyo rabaa inuu ciyaaro sports inuu ciyaaro inuu ordo inuu halka kubad ku soo ciyaaro inuu hadii naadiye waaweyn inay maxay tolo jira ilmahan waa inuu soo nafisaa nafis xalaal ah meel allaala meel uu kubad ku ciyaaro iyo meel allaala meel ay dhalinyaro ku kulanto iyo meel allaala meel ay ku sheekaystaan oo maxay tolo sharcigoodii iyo diintoodii dhaqankooda ay ku sameeyaan ma hayaan jaga walba waa la qabsaday wada walba waa la qabsaday meel walba waa la hayaa kaabadahaas ay wada tuban yihiin 10 iyo 20 ay u tuban yihiin taanagu markaanu yaraan saamaanu hayn balaamadana u tagi jirnay masaajidana kutubtaanu ka akhrisan jirnay dawaaranu yar ciyaari jirnay soo ciyaari jirnay soo dhiijo anagoo daalan baanu dhici jirnay qabax hadda fiir hadda taasina markaa maxay rabtaa inay tujaartii iyo zakadii iyo lacagtii iyo wixii dhalinyarada in loo sameeyo goobo aan ahaynun المساجد كما كانت مادنا أضياشوا ما الميرو حتى إصلاح هذا حتى بدل قاعدة كان آمس تعرفوا تجاوي هل كان كو آمس جوري كو آمس مساجد كو آمس بالعامة كو آمس قرمو هذا ما كقف كده المهير قرمو هذا يا يو كفتما يا يو حدونه كجرا قرمو بني آدم نقول يقف كده مركم حال بحنا نعم مساجد كمر كوي مادو آدابتي مساجد كصفقة هراء أضيق كاوين أباها كاوين احترام آدابتي إسلام كانوا برنا اسكول كيسي مال عامديسي دينتيسي dhaqankiisi baynu baraynaa maxaa rabnaa u sameeyno maxay dawayno goobo kale weyn ku ciyaaro oo murqihi ku dhiso oo aqliga ku dhiso oo lagu la doodo iyadna maxay tole iyadna waa in la sameeyaa qodobkaasina waa daruuri nabadgelyadii baan ka hadlayaa kaftaniga ma aha wali waxaan ka hadlayaa maxay waa nabadgelyadii dhalinyarada in la maareeyo oo si sax loo maareeyo hadii kale wax badan oo laga tabanayo ayay ku maaroobi doonaan qodobka ugu dambeeyay waliba dhalinyarada ah isna waxa weeyi shaqo abuur dhalinyaradu wada sheekaysanaysa wuxuu ka wada jaamacad maxaan ku falaa jaamacad abla horta dhamay 4 sano oo halkeen tagaa dhowtoona soo kuwii aan wada galanay wada maqaxyaha wada fadhiya halkeen ku falaa waxbarashadii iyo hankiisa raba ilmihiina uu ku dhex dhintay sababtoo waa maxay ma arkayo future-kii ma arkayo mustaqbal fog ilmihiina mustaqbal fog ma arkayo kuwii isaga ka horeeyay
ما أركيا إني ميل مرين وينجحين ويدقاقين وهرم مرين ما أركيا قضب كاسي سوينا وقضب أدم حتى ضرورة إن اللي يرى شقدو ذي وحقبت كودي إنه أولوية قصوى إن أي محيط ولا كردقنو هذا الكيان يذكر والدين شيء يا وحوها نبت قليل بالشديد ضرورة إنه تحي كتاب كإلهي نويني سنة النبي يقول إنه ويني صلى الله عليه وسلم أركان إنه ليه هي أيان محيط ولا يدين شيء لأن يرضون مستقبل كي أمضى إنه تحي بان يدين شيء دين تودا إن الله إلاليه فكر كودا إن الله إلاليه درين كودا إن الله إلاليه شهوة دودا إن الله ماريو شبهات كودا إن لقى فيدو ما لا يكون بحيث ولا نستان إن الله سمايو شق أبورنا أبتك إن الله سمايو إنها هذين اسكو أرورينه نبت قليه حقيقي وبرشيد أيده هلي إنها هذا إنه يرادانا نبت قليه إنه خطر وين بي كجرتا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير.